dumarka intooda badani waa ahlu naar maxay ku noqdeen dumarku ahlu naar laba arrimood weeyaan rasuulka ayaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam labada arrin gabadhii khayr ku bedesha janno ayuu rasuulku u ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam labada arrimood waa maxay oy gabadhu khatarta iyo halista uga jirto u gudbi walaasha si ay labada arrimood isaga ilaaliso hadday ku sugan tahay addaalu cala alkhayri ka faacilihi qofka khayrka dadka la wadaaga isagoo sameeyey buu la mid yuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam arrinta koobaad nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa naarta ayaa lay tusiyey oo lay geeyey waxaana ugu badnaay dumarka nebigu markii la weydiiyey waxa ay ugu bateen dumarka naarta nebigu wuxuu yidhi way kufriyaan oo maxay ku kufriyaan ma ilaahay bay ku kufriyaan baa nebigu la yidhi maye zawjkeedii ayay ku kufrinaysaa gabadha oo sidee uga kufrinaysaa haddii midood uu sanadkii oo dhan ixsaan iyo wanaag u soo samaynayey hal mar hadduusan biririxdo ou qalad yar ka dhaco ninkii ayay leedahay weligaa waxba iima samaynin khayrba kuguma arkin weligaa waad i xumayn jirtay weligaa waxba iimaadan qaban way daleecaynaysaa oo way caayaysaa arrinkaa weeyaan waxay naarta ugu mutaysatay gabadhu sifada labaadna waa sifadee nebigu calayhi salaatu wasalaam sifada labaad wuxuu ku tilmaamay tugtirna allacna lacnadda ayaad badinaysaan buu nebigu yidhi oo way lacnadaysaa carruurtii bay lacnadaysaa oo ninkii bay lacnadaysaa oo inta ugu badana waxay lacnadaysaa waa carruurta weeyaan oy habaaraysaa sifada labaadna waa sifadaa buu nebigu yidhi markaasuu nebigu yidhi wax sadaqaysta sadaqada ayaad naarta uga badbaadi doontaane labadaas sifo walaashayda qaaliga ahay haddaad ku sugan tahay hadda intay goorigoor tahay isgaar haddaad isgaari weysana naartaad gali doontaa uu nebi maxamed baa inoo sheegayo haddaad labadaas sifo aad ku sugneenna alxamdulilah dheh haddaad ku sugan tahayna intay goorigoor tahay isgaar oo labadaas sifo waa inaad lacnadda badiso weeyaan iska ilaali lacnadda badan waa inaad ninkaaga xaqiisa dafirtaaye ninkaaga xaqiisana ha dafirin oo ninkaaga wanaagga uu kuu gala iyo ninka aad xaaska u tahay wanaagga iyo khayrka uu kuu galayna muuji oo u qir hadduu qalad ka dhacana u cudurdaar marwada iyo xaaska wanaagsanay taa baa lagu yaqaanaa labadaas sifadood iska ilaaliya walaalahayga qaaliga haw walaashaydii baa tahay waan ku jecelahay jannaan kula rabaa iska ilaali labadaas sifood u gudbiya walaalihiin oo dhammaan u sheergareeya si sifooyinka ay isaga ilaaliyaan زوجك هو أقرب الناس إليك بمجرد انتقال الفتاة إلى بيت زوجها هذا الزوج صار أقرب الناس إليك وطاعته مقدمة على طاعة والديك أي نعم طاعته مقدمة على طاعة والديك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو جنتك ونارك إيش معنى الكلام مفتاح الجنة في يده إذا رضي عليك رضي الله وإذا غضب عليك غضب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها شو قال بعدين ما يكفي صوام قوام ما شاء الله وعم تحفظ قرآن وعم تدرس في المعهد ختمها بماذا قال وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت مفتاح الجنة بيده الله تبارك وتعالى امتدح النساء الصالحات الطائعات لأزواجهن قال سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله تحفظ زوجها في حضرته في غيبته في ولده في ماله في عرضه سبحان الله الرجال قوامون على النساء هذا له خصوصية وهذه لها خصوصية ما ينبغي للمرأة أن تتمرد على الرجل وأن ترفع صوتها إياك احذري فإن هذا يكسر قلبه ما ينبغي إياك والانصراف من بين يديه حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صيام النافلة حتى الصيام إذا قال لها لا تصومي لا تصوم لا تدخل أحدا إلى بيته إلا بإذنه لا ترتب مواعيد مع أحد حتى ولو كانوا من الأرحام حتى لو كان أبوها وأمها ما ترتب مع أحد إلا بإذن زوجها قال لك لا تروحي ما بروح لا تعملي ما بعمل إذا أمرك بمعصية لا تأتمري
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.